warar dheeraada ayaa ka soo baxaya afkambigii fashilmay iyo rabshadihii ka dhacay dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amxaarada. warbaahinta gudaha ayaa shaacisay in la dilay madaxweynihii gobolka Amxaarada Amwego Mekoena iyo la taliyihii sare kuwaasoo ay toogteen rag hubeysan. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ka xaqiijiyay in rabshadihii lagu dilay taliyihii guud ee ciidamada Itoobiya General Siyoro Moyokena. war qoraal ah oo uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku cambaareeyay afkambigii dhicisoobay iyo toogashadaasi. sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dowladda Itoobiya ayaa sheegay in lagu soo xadgudbay madaxtinimada shacabka iyo dastuurka waddanka Itoobiya. oo waxa kale oo uu digniin u diray kooxihii horboodayay xasaradahaasi isagoo carabka ku dhuftay in xukuumaddiisu ay ka qaadi doonto tilaabo adag. dhinaca kale war ka soo baxay xisbiga maamul goboleedka Amxaarada ayaa dhacdadan ku eedeeyay taliyihii hore ee ammaanka kaasoo Ra'iisul Wasaaraha uu xabsiga ka sii daayay markii uu xukunka qabtay. xaaladda ayaa ah maanta mid degan hase yeeshee waxaa heegan buuxa ku jira qaybaha kala duwan ee ciidamada federaalka Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii la doortay 2018 waxa uu isbedel weyn ka sameeyay siyaasadda Itoobiya waxa uuna soo afmeeray cadaadisyo xooggan oo ka jiray dalkaasi. Amaranci, Fikri, Aynadır, Ahmet